soo dhawaada mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba maanta waxaa idin la sheer gareynaa waa wajiga waaye because hore waxa uga hadlay body scrubkii skinki yani maqaarka wixii la marinayay sida kareemadii amaba rose waterkii waxaas hadda muhiimadda waxaa ka hadlaynaa wajiga waaye wajiga is very important because passportkii dhan oo ku socoto waa wajiga marka hadduu madow ama haaro kaa galo xoogaa self low esteem aa noqonaysaa so wajiga waa inaan sida uga bixi lahayn amaba aan hortagi lahayn labadaas muhiim noo banaan marka ana kareemo badan aan baraaweeyay oo qaaliye ah company qaaliye 12 sano ka hor camal waxa u shaqeyn jiray America waxa yaqaan reer oo dhan ay yaqaan reer Canada Ingiriiska xataa waa laga yaqaan because Ingiriiska aan uga shaqeynayay marka America aad u fiicnaa productigiisa night creamkiisa serumkiisa wax kasta ma sha Allah kadib company kale French ah aan ka gadi jiray skincare kooda oo qaali ah marka product waxa lagu yaqaanaa 3 bil hadaa baraaweyso 3 bil improvement ka weyso oo skinkaaga yani isbedeli way ku shaqeey way waa lacag qasaarta xumo galo marka America waa fiicnaa laakiin shaqadiisa iska daayay laakiin muhiimadda ani hadii inaan islu after garay maadaama hooyo ah ilmo haysto wajiga oo maanta pollution iyo weatherkii isbedelaya quraxdii oo yani qurax naga ma haysana laakiin quraxda xataa waa qaab daran tahay marka qabow kuleel waxa u dhaxaysaba aad pollutionka aad nagu badan baabuurta iyo waxa marka wajigii haddaan la lagu after garaynin waa laaba sidee marka aniga haaraha ama madow wajiga ugu ilaaliyay waaye marka igu soo socdeen si uu hortagi oo reality ugu shaqeeyeen waa vitamin C wajiga wuu nuuriyaa brighton ka dhigaa wuu cadeeyaa laakiin mad cadaanka Soomaalida ay u yaqaaniin like inta meel la tago wax la isku cadeeyo la maray loo bir la cadaanayo no 3-4 weeks amal wuxuu ka bixinaa waxyaalaha madowga ahaa wuxuu haaruhu ka ilaalinaa wajiga dib ugu soo cusboonaysiina muhiimadda waxa waaye wajigaaga nafaqaysan oo qurxoon oo caafimaad qabo nad cadaan ama madow colorka ilaaha bixiyo laakiin muhiimadda inaad qurxoonta caafimaad qabtid waa especially wajiga yani waji caafimaad qabo og yahay day cream iyo night cream markii samarka la gaaro qoraxda creamka waa very important Soomaali xidhan oo anaga cadaan ma nihiin ma u baahan sun cream laakiin sun cream wajiga u baahan yahay maxaa yeelay day cream asaga daad isku marsan wajiga wax ka soo hadho damage ka gaaro sida ugu soo celi lahayd yani aad ugu qaad marka ani waxaan dhanaa soo baraaweeyay waxaan diiday hadhowdii lacala in lacag kaga baxdo company-gan qof walba yaqaan 40 bana creamka la gadaa clinic waaye kana waa clearings 45 creamka la gadaa qof kasta waxaan dhan aan soo baraaweeyay ka badan lacag asaga khasaarina because anaga Soomaali hadana skin waxaan qabnaa ma sha Allah qurux badan madowgana skinkooda adeega ma qabno cadaanka skinkooda jilaaca ma qabno soo skin dhexaad qurux badan Ilaahay na siiyay marka waa inaan sidiisa ku heynaa ku ilaalinaa marka yaryareen camal ma fahanti marka inta ilmo dhalin ama hormoonka isbedelin ama ma fahanti marka say ugu heynayna waa this one waa very important waa dhuxul laga sameeyay waa 3 wuxuu ka sameeysan yahay 3 waxa ahaana micnaa u isticmaali kartaa inaad wajiga ku dhaqato inaad ka dhigato maxaa la dhahay face scrub oo 5 minutes wajiga ku haynaysa oo ku scrub gareynaysa mask ahana oo isticmaali kartaa soo 3 in one way soo week hada hal mar subscribe ka dhigay sorry waxaan ka wadaa scrub waa ka soo wash scrub and mask ahana week hal mar ka dhiganay inta kalena caadi ugu dhaqanay dhuxul waa 3 in 1 Allah lacag asaga qasaarna 3 waxayna gadaan soo kan labaad waxa waaye serumkan waxaan ku doortay waa Florence waxa waaye Italian waaye organic waaye 10 gini bas la gadaa Amazon online ka gado 10 gini bas ma sha Allah kana iigu xigo kana waa day cream waxa ku jira SPF 25 hadda pollution ko kale amal iyo anaga weatherka jiro kale UK quraxda falaaraheeda ayaaba ka daran quraxda ma arkin waxa ka daran caadka ku aadan falaaraheeda ka daran damage so SPF 25 waa laakiin ku samar jiro 50 u baahanahay ama 60 adiga waxa ku xiranta cimilada joogto kan waa night cream marka fade out la yiraahdo company-gan fade out why am fade out u doortay fade out waxaan u doortay waxa loogu talagalay hyperpigmentation-ka dadka qaba wajiga kala nooca skin-ka madowga gala haaraha gala waxaas inuu qofka micnaha haday soo galayaan oo ka hortago oo wajiga soo cusboonaysiyo haddii ku dhacan oo ka remove garay oo wajiga meesha ku haay ma fahanti quruxda ma sha Allah okay kaas waaye sunniyaha markaan daato oo shan mina wayna go'aan baarka wayna go'aan hurdal aan darteeda hormoonka everything castor oil waatan 100% organic waaye waxaan ka soo gaday
whole unbarred laakiin it doesn't matter meesha tagada as long 100% tahay taas muhiimada ama organic ku qoran tahay kan marka Amazon ka soo gaday intaan ku shubtay waa mujeedin muu baahnidin insha Allah kale inaad gelisaan waa maskaarada camal geedkeedii oo macnaha cidla ah sorry waxaan ka wada empty container ah soo baarka ku shaleynaysa isuunyaha saa ku leynaysa waa dhamaatay marka siramka waxa muhiim ah sida loo marsado first waa inaa luxdaa wax kasta organic waa inaa luxdaa markaad luxdo waad soo qabanaysaa waad luxday waad soo qabatay okay waad dhijiskan mugta sida halka ugu shubto example waa inaa activate ku samaysaa waa inaa kululeysaa macnaha hadda gacan hadee too kale waa sidaas mugtahay dhib ma laha waa qoorta iyo waxa marsanaysaa wajigiina qoortiina kala reebina si isugu ekaadaan wada qurxoonaadaan example hadda ani kan oo kale maksado يعني أساس مرصده وأنا هذا كاسة أقول سمية كيت كان ورولر وحويان محاولها دقح عمل أديقة لكن كم أديبه ما فهمت إسلاك مطرل عمل سأقول شيء ما قصر مل سلاس أو مساجين سكر هي مادة سكر وذيسة إلا هالكاس ميل كاسة سلاس أو وذيسة ويش يقول فيها أكتيفيشن وكلنا معناها يعني ما فهمت بلاك سيركيليشن كلنا كعايسة ما قرحة دان كريم كامرنا سوا صحنا سوا نصنا خلاص سبسكرايب لايك شير هيجي لو بينا هذا أمهاتكم جوكتان إيه باشا إن شاء الله thank you so much.